laantiin meel walbaad naga daawanaysaan maalin wanaagsan waxaanu ku sugannahay magaalada muqdisho magaala madaxda gobolka banaadir ee muqdisho ama caasimadda Soomaaliya barbarkayga waxaa fadhiya kabtan Cabdilaahi Gacma Fiij oo in badan wada garanaysaan markaad muuqiisa aragtaan garow uu ka soo kictimay nasiibaan isku helay inaanu maanta chance isugu helo magaalada muqdisho wuxuu ka qayb galayaa oo toos u furmaya koobkii degmooyinka gobolka banaadir oo uu ciyaarayo degmada Shibis oo dhawaan ku soo dhaweysay magaalada muqdisho Cabdilaahi in badan bay dadku arkaan muuqiisa iyo hadallo dhaxalgala uu kaga tagay saaxadda kubadda cagta waa hogaamiye in badan ka soo ciyaaray Somaliland koobkeeda gobolada Puntland laba jeer uu ku soo guuleystay iyo sidoo kale Soomaaliya uu saftay koobka gobolada maamul goboleedada uu saftay dhowr jeer Cabdilaahi ku soo dhawow ugu horeyn magaalada muqdisho anaga ka soo horeeyay aan ku soo dhaweeyo bal ka waran kubadda cagta marxaladii aad u soo martay iyo goboladii kala duwanaa iyo sidoo kale meelii kala duwanaa ka soo ciyaartay ugu horeyn ilaahay ma iskale marka labaad waxaan mahadcelinayaa saaxiibkay qaaliya Sakariya Haldoor oo ah nin mar walba u taagan dhalinyarada sportska mar walbana kor u qaada inta kadib waa ku dhawahay muqdisho maadaama ay iga soo horeystay aad baa ugu dhawahay marxalado kala duwan baa kubadda cagta ka soo maray oo waqtiyo adag kala duwan bilowgii ilaa waqtiyo kala duwan waqtiyadii ugu wacnaa soo maray hal iyo laba hadii aan ka xuso waxa weeye waqtiyadii xulkayga gobolka Nugaal aan koobka laba jeer oo xiriira 2012 2014 aan kula guuleystay sidoo kale waqtigii ugu farxadda badneed kubadda cagta inta ku guda jiray waxay waqtigii xulka maamul goboleedka Puntland aan kula guuleystay koobkii maamul goboleedyada oo ahaa waqtigaas 2016 waqtiyo badan oo farxadeed oo ay soo madhay kale waxaan oranayaa waqtiyo badan oo kala duwan oo ku soo dhex jiray kubadda cagta aad u mahadsan tahay Gacma Fiij Somaliland Hargeysa Stadium marar kala duwan baad ka soo ciyaartay iyadana imse jeer baad matashay goboladii ka qayb galay waa mahadsan tahay Sakariya waqti badan baa kale Somaliland aaday 2015 16 ilaa 19 oo hadda ugu dambeysay ahaa waxaana matalay xulkayga gobolka Xayeysiimo oo aan laba jeer matalay Hargeysa Stadiumna waqtiyo badan baan ka soo muuqday aan soo noqono Cabdilaahi Gacma Fiij kubadda cagta dhawaan waxaad saacisay 2 sano ka hor inaad saxadda kubadda cagta ka fadhiisatay oo koobkii gobolada Puntland maad ciyaareen maalmii dhaweytay wala macallimiinta aad ku jirtay bal aragtidii maxay iska bedelay kubadda cagta aad ka fadhiisatay haddana maanta aad dib ugu soo noqotay adigoo wali ku jira marxaladda adigu wanaagsan waa mahadsan tahay koleyba markii hore aan qorsheeyay ahayd inaan kubadda cagta aan ka dhex baxo laakiin dib haddii aan iskugu laabtay waxaan go'aansaday inaan kubadda aan sii wadi karo oo waqtiyo badan aan kusii guda jiri karo oo aan sii ciyaari karo in badan marka ana go'aansaday inaan dib ugu soo laabto kubadda cagta sharci diidaya ma jiro balaayirka hadduu kubadda cagta ka baxo inuusan dib ugu soo laaban karin koleyba waa ku soo laabtay insha Allah waxaan rajeynayaa inaan kubadda in badan sii ciyaari doono haddii ilaahay ma markii kugu horeysay aad ciyaarayso degmooyinka gobolka Banaadir oo degmooyin badan ay isugu imanayaan adiga iyo ciyaartoy kale waxa ka soo kaxeynteen Puntland waxaad malaynaysaa inaad degmadaada ku soo kordhin doontid waxaan rajeynayaa haddii ilaahay idmo kale anoo ciyaartoy badan waan ka soo dhex muuqan doonaa tartanka waxaan rajeynaynaa khaasatan degmada Shibis inaan sanadka aan wax badan ka bedeli doono insha Allah haddii rabbi idmo oo ilaahayna la garab galano waxaan rajeynaynaa inaan noqono kuwa ugu dambeeya oo loo sacabtumo insha Allah dad badan oo ku daawanaya markay muuqaaga arkaan magacaagaba intaan la soo hadal qaadin oraah caano in badan gashay diiwaanka Soomaalida u malayn maayo inay ka simid ahaan doonto oo siyaabo kala duwan loo isticmaalo waqtiga adigu aad hal minute u isticmaashay bal oraahdaasi sida ay ku timi iyo waqtiga ay timi iyadana inaad nala wadaagto iyo ujeedkaaga wuxuu ahaa waa mahadsan tahay koleyba dadku badanaa waxay koleyba igu astaameeyeen dhalinyarada halkan joogta u maleymayo waqtiga ay timid waqtiga wuxuu ahaa aan semifinalka ciyaareynay ciyaarta xamaasadeeda iyo kor u qaadideeda ciyaarta dhexdeeda xamaasadeeda ahayd baa koleyba erayga iga keentay koleyba dadku siba u fasirteen laakiin anigu koleyba arintaas waxaan uga jeedaa xamaasadda ciyaarta baa iga keentay waxaan rajeynayaa koleyba dad badan oo isticmaala waa jiraan koley qof walba oo isticmaala siyaabaha adigu aad u isticmaashay waxa jira siyaabo badan oo loo bedelay orahyada maxaad ka xasuusataa niyaho orahyo badan baa arkay Premier League oo kale markii la ciyaarayo waa la soo qaataa waxa la soo qaataa doorashooyinka oo kale waa la soo qaataa waxa kamid ah barnaamijyada erayada aad xustid tusaale ahaan oo kale hadda habeen dhexdaas Man United baa laga meeriyay waxa la yiri umaleemayo Man United inay Premier League ka simid ahaan doonto marka doorashooyinka oo kale siyaasadda oo kale waxa iyagana kamid ah hadallada go'aansan waxa kale oo kamid ah umaleemayo Maxamed
adigu waxyaabo noocaas oo kale la soo qaadanaya adigu si baad u isticmaashay ujeedkaagu muxuu ahaa marka ujeedkaygu waxa ciyaarta semifinalka xamaasadeedii koleyba waxay ahayd ciyaarta xamaasadeeda iga keentay koley raali gelin buuxda waa ka bixiyay de arrin siyaasadeedna oo anigu uma jeedin waxa uga jeeday kaliya kubadaas iyo gamekaas kaliya kabtankii baad ahayd waqtigaa hogaaminayay xulkaagii cadho kaa keentay ciyaarta dhexdeeda bal odhaahda markii feedback maxaa kaaga soo noqday markaad ka tagtay garoonka wallaahi waxyaabo badan baa igaga soo laabtay dad badanna waa ila soo xidhiidheen kadibna dee raaligelin buuxda baa koleyba kasoo bixiyay videoga dee qofkii daawada waa daawaday de hadda waan jaanis ku haystana de waxaan leeyahay mar walba soomaali weyn raaligelin baa siinaya meel walba ay joogaan cid walba oo kelmadda isticmaasha haddana waa u fasaxan yihiin hadday qoraal tahay iyo hadday cod tahay iyo hadday wadda hadday ugu arkaan ay ugu yidhaahdaanba intaba waa fasaxay yihiin maxaa kugu la yaab badnaa gacmo fiij intii odhaahda iyo saameyntaad ka heshay iyo magacaago maxaad sidaba isugu lifaaqmeen wallaahi horta waxay igula yaabka badnaa waxaa weeye koleyba sawirkaygu mar walba igu soo laabta meeshaan galaba koleyba sawirkayga yaalay siiba sawirkii caanka ah oo markii ciyaarta dhexdeeda ku jira anoo microfoonka haysta sawirkaas ay igula yaab badnaa mar walba soo laalaabta magacaaga iyo odhaahda iyo maa weyn iminka magacayga iyo odhaahda koley magacaygaa weyn mar walba dad badan imika waxay leeyihiin maadaama waagaa ka saaray puntland soomaaliya oo u malayn maayo inay puntland soomaaliya kasii mid ahaanayso adigoo saaxadda garoon ku jiro cadhaysan iminkana ma laga yaabaa shibis inuu yidhahdeen markay wax kale la kulanto banaadir kama sii mid ahaan doonto shibis taa ma la kulantay adiga qudhaado waa mahadsan tahay koleyba commentiyo badan aan ku arkay koleyba waa ku arkay inay arrintaa jidho laakiin insha allah waxaan rajeynayaa dee koleyba hadalka kii hore u ahaa insha allah inuu si dib usoo laaban haddii calafkeena cunana alxamdulilah haddaa cuni weynana dee rabbilcaalamiin baa oranaya taageerayaal badan oo ama puntland ku sugan soomaali guud ahaan ku sugan oo halkan aad leedahay walow aad ku jirto ciyaarteeda ugu caansan soomaalida gacmo fiij halkan kabitaan oo taageerayaal badan baa ku jira ku daawanaya iyagana maxaad khaasatan u faraysaa oo mar walba sawirkaaga iyo hadalladaadii halhaysta ahaa isticmaala dhammaan taageerayaasha halkan iga daawanaya ama halkan aan ka wada socono koley waxaan oranayaa meel walba aad joogtaan horta waa idin salaamayaa salaan kadib dee koleyba qof walba oo de hadalhayskayga haysta dee koleyba anaa maanta ila hadlaya qofkan ila hadlayo aniga hadalhayskayga waa isticmaali kadhaan qoraal ahaana waa isticmaali kadhaan cod ahaana waa isticmaali kadhaan insha allah waxaan rajeynayaa dee koleyba sakariya inaa soo gashaan ba hadhow diidaya aad tirahdaan sakariyo adigana amu kaa saaraa qaybta warbaahinta oo dhanba marka koley ka saari maya saaxiibkay sakariya insha allah aad buu mahadsan yahay gacmo fiij waa legionska ku jira kubadda cagta in badan buu soo ciyaarayay koobab kala duwan uu kusoo guulaystay oo kii puntland uu la qaaday iyo kuwii puntland gudaheeda uu ka qaadayba waxaan jeclahay somaliland koobkeedu baa ku dhiban iyo jigjiga iyadana ma rajeynaysaa inaad mar un tegi doonto somaliland waa koleyba in badan waa tagay jigjigana inaan tago waa rajeynaya haddii ilaadmo koobabkaasna waa rajeynayaa inaan qaado aan noqdo koleyba soomaali meel walba ay degto balaayar kasoo ciyaaray inaan noqdo insha allah inaan ku hirgashaan rajeynaya gacmo fiij iyo aniga oo intan ku sugan muqdisho meeshaad ku aragtaan waa legiankii u malayn maayo ama dadku siday u yaqaanaan intaynu ku kulmayno barnaamijkan lamida aniga iyo gacmo fiij waxaan idinkaga tegaynaa asalaamullahi calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu